horta ikraan waxay ka mid ahayd gabdhaha Soomaaliyeed runtii gabar Soomaaliyeed waayo qof aan ka damqanayna ma jirto laakiin waxaan u arkay kiis inuu yahay kiis siyaasadaysan oo maaragtay si kale ku socda ayaan anigu u dareemay waayo hooyada waa dhageystay eedaynteeda laakiin waa hooyo wax ka maqan yihiin ikraan waxay tiri waxaad u tiin ayeeyo waad hadashaan maxaad u hadli weyseen dabcan annagana umayna imaanin xafiisadeena ka shaqaynana kumaana arkin aqoonna umaana lahayn marka hore dabcan iyada iyo aamina ku filan say ila tahay oo dumar Soomaaliyeed uma baahna waayo haday aamina wayna taqaano xildhibaanada ahayd mar walbana iyadoo dadka eedaynaysan arkay iyadoo xildhibaan ah oo leh hebel dambiila qofku waa la eedayn karaa laakiin dambiila taa lama dhihi karo dabcan laakiin waxaan rabaa aamina inaan u sheego xildhibaanada aan ku hormaray inaan dhaho xildhibaan xogaa way ka yara baxsan tahay baasha wayna ka baahday laakiin inaa xogaa is ururiso oo aad ka fikirto oo aadan dadka maaragtay aadan eedo ay lahayn aad dusha ka saarin dabcan kiiska aan waxaan qabaa ikraan haday noo shaawal heli doona haday dhimatana haday ilaahay baa u naxariisto aabeed 2 bilood kadib uu soo hadlay iyadoo hooyadu aabihii dhalay maxaa u soo hadli weysay dhaysama arkine hooyada anaga eedeynaysay ma fahanti mana fahmaan sababay noo eedeynayso anagu waxaan ka hadalnaa kiisaska gabdhaha tacdiyada dhibaatada loo geysto ama haduu yahay kufsi haduu yahay jirdil hadii maaragtay qoys danyar ah haduu roob iyo dabayl yimaadaan laakiin kiis maxkamadiyaan geynay markii ugu horeysan daawaday kiiska maxkamadda galanka furnay dheen kiis maxkamad la geeyay waxaan uga hadla ma aqaan baanu because it's a criminal case la ma amniya shaqul kule baarisa shaqul kule markuu dhamaaday kadib ayaa laga hadli karaa dhihi karnaa maxkamadda waxay qaaday xukun cadaalad darro ah laakiin kiis marka hore la orday meel kala geeyay aan garanayn daahir amiin jeeso oo markii ugu horeysan ka hadlaayeen aan arkay ayuu ahaa wixii la dhaayay dhaaf ikraan lama dhalan dhaaf adeerkeeda dilina dhaaf ani maxay meeshii gelinayo ayaga marka waxaan maleynaa waa dad waxba qaldan wixii qaldan waqtiga sixi doono marka anu waxaan rabaa inaan uga gaabsado oo gabadha walaasheeya ikraan way naga wada maqan tahay aniga iyo Batuulana wax nagu gaar hadaan dhan ikraan aawe hadda ma helaybo adiga nagu filan adiga wad markii ay noqoto in aad dad u baahan taana adiga na soo raadinayo sababtoo ah anigu maba garan karaba aqoon hore umaana lahayn meelay degantahay maana arkin cid iyo timid ma jirto anigu dib markuu dhaco la yimaado waxaana mid ka jawaabto haddaan mid arko aan maqlana mid raadiso markii arintan aan maqlayna mas'uuliyiinta ay ka dhalatay ikraan dadka midaan la hadlay waxaan la ii sheegay CID-da inuu kiiska ay baaritaan ku jiro baaritaanka iyo laamaha amniga u deynina meeliga banaan marka ma jirto halkaasaan marka kiis ikraan aan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u bayaaniyo ikraan waa gabar Soomaaliyeed waxaan ahay hooyo waxaan dhalay gabdho marka ma garan karo waxay hooyada aniga ii eedo ama aniga codkaygu ku heli karto ma fahmi karo waayo inta kiiska ikraan hadda uu inta marxaladood uu maray waxa moodaa biyo hir ah oo sabaynayo sababtoo baysku ku bilowday iyo marna wuu ka marna wuu soo dagayaa waxa iigu yaabka badnaa marka waxay ahayd waxa la yiri waxa dila Fahad Yaasiin dambiilo ah dambiilii maxaa diyaaradda looga celiyay muxuu u soo gali waayay waa yimid maxaa hadana aamusiyay ma fahmi karo marka aan wax isku qasan oo isku walaaqan Yaasiina loo dhiibay Yaasiina inta ka baxay Yaasiina ka dambeeyay Yaasiina qaad cadeyn haday baysaan ma maxkamadda tagaan haduu Yaasiin dambiilo yahay maxay aamina Yaasiin ugu nadnaadaysaa aamina marka waxaan rabaa xildhibaanada tahay xisho inaan ku iraahdo oo aan ku dhaho Yaasiin taliyaha Yaasiin aad leedahay maanta dhan aad ku hayso sida ikraan aad uga damqanaysan annagana uga damqaynaa waa inuu Yaasiin eedaan hadda adiga ikraan eedo tahay waxa wiilkay gabadhana waa ku simayeen isku si inaad midna dambi kula dul dhacdo oodan cadeyn u haynin midna aad tiraahdo xuquuqdeeda raadina midda labaad xagee jirtay aamino markii qarxii nagu dhacay gobolka Banaadir aqoon-yahankeeni indhaheeni iftiinkeeni eheladeen markay baaba'een waxa loogu soo gunaanaday gabadheedan qarxisa basiiro waa gaal jecel ma noqdo qaadna waa maya gaal jecel waa dadkeena gaal jecel aan la dila ma dhihin gaal jecel maana afduuban gaal jecelna dhibaato maana geysan gaal jecel waxa ka maqan anayga maqan yihiin laakiin aamino waxaan rabnaa inaan u sheegno xildhibaanada hadaa adigu kursi rabtid hab kale u doono laakiin ha ku doonan Yaasiin iyo hebel iska iloow hooyadana ha ka waalin hooyada gabadheeda maqan annaga naga wada maqan tahay si istaybala oo cadaalada oo wanaagsan inay u doonato kaasaan aniga qaba aragtidayda ikraan gobolka Banaadir ay nagala shaqaysay waa gabar yar oo Soomaaliyeed
way maqan tahay dariiq walbaba waa qabaleyd ya ikraan waqtiga hore duq magaalada xafiiskeenaba joogtaba laakiin waxaa nasiib darro ah in kiiskii laga dhigo wax kale adeeradiyaa mid waxaa leeyahay adeer uma aha nalama dhalan jeesow nama soo galo adeer kala hadla waxaa leeyahay adeer nooma tiid eedooyin kale dhuubow hebelo waa tuug kaasaa qaatay madaxweynea loo tegay ani afaaraas maxaa na geliyey anuu marka wax sababtaan u gaabsada waxay ahayd oo aan hooyadan u ixtiraamay in badan aan dhegaysanayna mar walba waa la iisoo tuuraa eedeeda waan arkaa waan daawadaa siday kaaga maqan tahay nooga maqan tahay ikraan cadaalad ay helaysaa cadaaladana ku heli mayso inay maaragtay cirka la geeyo kuma helayso ha falayd garaynina meelay jirinna ha ka dooninina waxa jira cadaaladda laamaha amniga loo daayo waxaa shuqul ku leh xeer ilaaliyaa jooga CID daa joogta maxaan ku dhahaa waxaa jooga maxkamaddii aad geysateen gal maxaa maxkamadda loogu kalsoonaan waaye waa maxay eedan waa maxay ikraan maxay u badatay sabab ma fahmi karno maxaa loo baahinayaa ma kiiskaa been abuura ma kiiskaan wax ka jirin ma siday dadku leeyihiin gabadhu waa nooshayaa sax anu midna ma sheegi karo laakiin waxaan rabaa inaan ikraan hooyadeed ku idhaahdo ikraan haddaan ayeeyo u ahay xaqeedu kuma doonaayo inaan buuraha korkooda ka doono laakiin waxaan sugaynaa kiiska markii qof loo soo qabto oo la yidhaahdo hebel waa dembiile maxkamaddii way xukuntay haddana way sii daysay maalintaasaan hadlaynaa laakiin kiis kriminaal ah oo la leeyahay waa sarkaalad hay-ad ka tirsan oo hay-addeedii lagu eedaynayo dee eedaynta iyo dacwadda wada si degan u wada laakiin aniga ma u malaynayo kiiskan meel kale uu ka socon karo oon maxkamad ahayn inuu jiro qabiil uma baahna qof kale uma baahna dood uma baahna cid allaal ciddaa tuumaysaan waa muwaadin soomaaliyeed waa la eedayn karaa laakiin hebelaa dambeeyey iyo hebelaa qaaday iyo hebelaa dila iyo waxba aamino uma samaynayso aamino waxaan leeyahay marka waxba guuxaaga ha ka dheeraynin hadday gabadha kaa maqan tahay way naga wada maqan tahay aniga iyo batuulana hooyada waxaan rabaa inaan u sheego batuulo Sheekh Axmed Gabalaya aniga gabadha haddaan ayeeyo u nahay ayeeyan u nahay habaryarna waan u nahay eedana waan u nahay sababtaan u aamusnana dee idinkaa la rabaa inaad isweydiisaan wax isku dhabaqsan anaga ma soo dhexgeli karno oo aan garanayn waxa sida yiinba ma naqaanba waayo marna intaad joogtiin maalin intaad ka hadlaysiin maalin intaad ka hadlaysaan meelaan u raacnaba ma naqaan maalin adeerkaad ku dhegan tahay maalin adaa qaylinaya xaggeen aadna meelaan u baxna male marka waxaan leeyahay kiiska ikraan kama fiicna intii Soomaaliyeed oo dhimatay oo baaba'day masiibadii gobolka Banaadir ka dhacday aamino iyo islaamaha meesha jooga oo weerka cad xirtay ikraan hooyadeed xagee jirtay maalintaas miyay weer cad soo xirata noomay soo xiranin macal asaf marka waxaan rabaa cid Cabdidaahir iyo Abukaati Zabriye iyo injineer Yariisow iyo Shuuriye iyo Xalane iyo Cabdullaahi Dheere iyo Mahad iyo Caaqilan ku weyn gobolka Banaadir Zaare iyo Sabax way naga dhinteen ugu dambeyntina waxaan la yiri gabadha idin disho waa Basiiro waa gaal jecel ma ayn annagu hay badil dhaho qoys iyo qabiil marka la dhaho abgaalaan ahayn dadka la baabiyay ugu badnaa ku baabay haddana qof Soomaaliyeed oo lagu xadgudbay ma jirto iska daaya marka la dafuul iyo geedaha la laacaye kiiskan u dayno Soomaaliya qofka ka dilay hadaa taqaana dacweyso anu marka waxaan leeyahay ugu dambeyntii kiiska ikraan yaa la siyaasadayn ha loo daayo kiiska injineer Yariisow maayarkii lagu dilay xafiiskiisa ee ugu dambeyn la yiri gabadha idin dishay waa gabadhaas ee aan cid bini aadana loo soo qabanin qofna waxba loo yeelin aamina way joogtay xildhibaanada macal asaf nalamaadan barooran noomaada damqan nalamaada qaybsan murugada maxaa maantay midda kale maana arkin ayadoo hadlayso markii wala weyn dadka lagu gubaayo la leynaayo xildhibaanada ahayd xildhibaan Naciima idin ka hadlay hal maalin ma arkin aamina ayadoo hadlayso aamina hadda ma weerka waxa u soo xiranaysa ikraan haddaa jilaysid iyo haddaad jilaynba ikraan waa gabar Soomaaliyeed ha nacsiinin dadka hana isku dayin inaad weerarto cid ka maaragtay adiga aadan xaq u lahayn inaad adigu eedayso marka waxaan rabaa inaan ku dhaho taliyaasiin ikraan eedada u tahay yaasinana eedadiis waana mahadsantahay